Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaati. Soo dhawaada asxaabtii hore iyo asxaabtii dambeba. Intii hore noola joogto waxaynu leenahay thank you so much. aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. waxaan laydinka rabaa share, like iyo comment. asxaabtii dambe oo nagu soo biirtay waxaynu leenahay adinkana waad mahadsan tihiin. subscribe saara janaalka, like, comment and share. intaas baa ha hilmaamanina dhammaantiin. sidaad noola joogteen waad ku mahadsantihiin, sidaad noogu soo biirteenna waad ku mahadsantihiin. mar walba ayaynu leenahay. caawa barnaamijku waa barnaamijkii ahaay qiso iyo khiro. waa jacaylkii, waa arrimihii jacaylka waa caawa. wax kale ma ahan. arrimihii jacaylka ayayna tibi doonaa haddii uu ilaahay yiraahdo oo ilaahay noo ogolaado dhammaanba. waxaa jiray hooyo soomaaliyeed oo ku nool dalka yurub, dal ka mid ah. waxayna sheegtay, waxay ila wadaagtay barnaamij aada iyo aad u qiiro leh, laakiin iska normala haddii meelahan dadku ay maqlaan. allaha naga koriye. waxaa dhacay hooyada soomaaliyeed inay u dacwootay nin hore ay ilmo u dhashay hooyadu. kabacdi ninka hore way kala tageen. 2 cunug ayay ninka hore u dhashay. ilmihii iyo iyada marka dambe waxay aroostay nin kale ay soomaaliya ku guursatay. ninka kale soomaaliya way ku guursatay. waxay haysatay gabar iyo wiil oo ninka hore oo furay ay u dhashay. waxaa dhacday, way soo baxeen. waxaa dhacday inay habar 2 cunug iyo ninkii dambe oo ay aroostay u dacwootay. markay u dacwootana ay loo ogolaaday cabaar ka bacdi. markii loo ogolaaday ayaa waxaa dhacday, maxaa la dhahaa, wiilkii iyo gabadhii oo ninka adeerka oo habarta qabay la joogay dalalka Afrika, dal ka mid ah oo meeshaas lagu biilayay, oo gabadhna waxbarahaysay, wiilkuna waxbaranayay. hooyada biilkooda bixinaysay, dharkooda wax walbay bixinaysay. ayaa waxaa dhacday in markii fiisihii loo ogolaaday, tikidkii loo soo gooyay ilmihii iyo odagii, way soo baxayeen. markay soo baxayeen ayuu ninkii habarta wuxuu ku yiri, maxaa la dhahaa, waxaa jiro barnaamij aan kaa qarinayo. barnaamijkaasna ma raba inaan kuu sheego intii aan ku imaanayo. markaan ku imaado ayaan barnaamijkaas kuu sheegi doonaa haddii uu ilaa yiraahdo. waxay tiri okay, dhibaato mala, insha allah, ilahay khayr ha ka dhigo, imow. waa hooyo ninka ka maqnaaya, odageedii ka maqnaayay. waxay samaysay, way soo dhaweyday maalintuu imaanayay. eelboorka ayay ka doontay. way imaadeen. gabadhiyo waxay aragtay caloosheedii gabadha ay buuran tahay. habartii arkayso. markay aragtay, markaasa meesha ugu yaraan adaga wadanka looga dacwoonayay 5 bilood camal ay joogeenba, waqti badan ma jooginbo. gabadhii caloosheeda xooga buurinta markay habarta aragtay, habartii way shakisay. waxay samaysay, khataray aheede, waxay samaysay si toos ahay gabadha ula fadhiisatay. way la hadashay. waxay tiri, hooyo maxaa qaldan, warkaan muxuu yahay, xaaladan maxaa waaye, maxaa kugu dhacay. horta dhakhtaray geysay habadha gabsoori. markii kow dhakhtaray gabadha geysay, waa la baaray gabadha. gabadha uur waxay leedahay 4 bilood. uur 4 bilood ay leedahay gabadha. okay, waxay dhaheen dhib mal haddii uur 4 bilood leedahay, waa in la helaayay tiri ninkii ka dhalay gabadha cunuga. marka gabadhan Afrika iyaga imaatay, da-yar ayay ku imaatay. marka warkaan war shaqeeya ma waxaa layidhi in la helo waaye gabadhan qofka uureeyay, in la helo waaye layidhi. adaana gabadhan hayay, odaa dhalay. sheeg gabadhan waxay ku dhacday naagweynta aad been sheegaysana adaaba sharcigaagu uu halis ku jiraa, because beenaad sheegtay, waa laga calaa wadanka. habartii arkaa kusoo dumay fagay. waxay soo baxday, waxay imaatay habartii gabadhii la fadhiisatay.
way wareysatay gabadhii markay wareysatay waxay tiri hooyo maxaa qaldansaan maxaa waaye. waxay tiri hooyo aboowe markuu maqan yahay iyo ani aboowa qol degan inay dhahday, maxaa dhaha adeerna qol u deganaay. waxay tiri marka habeenkii markii uu aboowe maqan yahay adeer wuu ii imaan jiriyey, wuxuu rabo iga sameynaya. marka ko wuxuu ugu bilaabay inuu itaataabto kabacdina uu ii tago oo ii galmoodo. marka waxay tiri sidaas awgeed ayay iigu dhacday arrintan, uura yeeshay. habartina ha u sheegin oo ugu dhahay intii ilaa meelka tegayno markaan meel tagnana habarta waa furaa adaan ku qabaa oo igu dhahay. wow 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 ilaahayow naga haay. waxaa dhacday marka xaaladda markay meeshaas marayso in ay habartii yaabtay, farajacday, balaaya qabsatay. fagay tiri ninkay u tagtay way ku jira saaxibkaala kula fadhiisaa haye waa la hadashay. waxay tiri maxaa qaldan ii sheeg. mid kale gabadha uuray leedahay, gabadha saasa xaaladasa ugu dhacday leedahay adaana ku sameysay isan shilfahmayo aday ku sheegtay gabadhii. marka warkaan maxaa waa warkaan qaldan muxuu yahay. wooyinkana wuxuuna nu shaqo kumid mana taamin gabadhan cud bilaahi adeerkeedan ah yaa warkaas ka yeeli doonaa. waa lasbaari doonaa, baartana lasu daray, waa la baaray ninkii dhacankiisaa la baaray, gabadhina waa la baaray dhacankii. waxaa la ogaaday ninkan inuu yahay ninka uur kale, gabadha isagoo u galmooday ayaa la ogaaday. habartii waxay tiri okay saas miya haa dhib malehay tira. gabadha isbitaal la geeyey waxaa yar kabacdi way dhashay. gabadha markay dhashay cunugii dowladda la wareegtay. ninkana waxaa dhacday in wadankii laga saaray because waa dambile. gadaala loo celshay, habartii way dacweysay, gadaala loo celiyey, wadanka africa lagu celiyey. marka barnaamijkan wuxuu daaran yahay hooyooyinka soomaaliyeed dhammaan. waxaa laga codsanayaa haddii ay ku joogto gabar oo nin kale oo ku qabo, ha ku aaminin gabadhaada ninkaas, because waxaad u maleysaa waarid amba waxaad u maleysaa qof ixtiraamaya caruurtaada, laakiin ma ahan dantu taas. sheekadu waa ka weyn tahay dad. sheekadu waxa waaye adigana howlaa kugu socoto, canuga gabadhaadana howlaa ku socoto. adigii meeshaad ninka caawi isleedahay oo naga u noqo noloshaada waajibkaada guda isleedahay, asigana waajibkiisa ilmo ka gudahooyaa. marka gabdhaha soomaaliyeed, hooyooyinka soomaaliyeed dhammaan waxaa laga codsanayaa ambaa u sheegaynaa in ay ogaadaan ilmahooda xaaladooda waxay ku sugan yihiin. si gooni ay u wareystaan gabdhaha, wiilasha ay wareystaan, si tartiiba loo dejiyo wixii qaldan. canugana mar walbo xaaladiisa guud lala socda, gaar ahaan gabdhaha. waa kaasaa warka xaaladda meesha mareysaa. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. thank you so much dhammaantiin sida noola socotaan iyo meel kastoo aad nagala socotaan. xilli kastay intahay saacadda waqti waxaan idin wacnaado. aan idin leenahay kuwa xanuunsan allaha caafiyo, intii caafimaad qabta caafimaadka loo siyaadiyo. karonay waxaan sheega allah naga hayo. maxaa la dhahaa dhammaana janalka naga daawanaysaan waa cabdi official vlogs. waxaan idin leeyahay please subscribe, like, comment, share. intaasba ha ka hilmaaminina. waadna mahadsantihiin. wacalaykum assalaam.